markii lagu yiri inaad dahabkaaga iyo boorsadaada aad soo aruursatid oo soo qaadatid ayadoo ma aragtay xaaladu masaba aad ku jirtaan xaalad khatar ah oo nafsadiinaba labadiinaba aad ku waayi kartaan inaad xaaskaaga badbaadiso iyo in aad ma aragtay dahabka maalka nafsadaada inaad badbaadiso iyo inaad gabadhaada hormariso ayada badbaadsato waxa lagu yiri midkee kula fududaatay bal maanta soo kara diyaaradda waxaanu ka degaynaa meeshii lagu hoogay ee lagu baay ee Mareykanka soo kara diyaaradda were married. Isabella worked as a real estate agent and Louis owned a small solar panel company. On April 30th, 2017, after leaving her 9-month-old daughter with her relatives, Isabella flew to St. Martin, a small Caribbean island where she met Louis. They planned something like a honeymoon, during which they were to return home to Florida on a sailing catamaran Louis had bought before he met Isabella. On April 30th, the couple left St. Martin. They were in the British Virgin Islands on waxay tageen jasiirad la dhaho magaceeda Varadero bal soo sheega gobolka ka tirsan tahay Varadero jasiirada la dhaho waxay ay joogeen 14kii May ayay ciideeda wacday waxaana ku tiri waa soo laabanaynaa hadda alxamdulillah yani destinationkeeni aan ugu talagalay safarkeenu inuu gaaro waa joognaa soo dib hadana u soo laabanaynaa waa May okay 14 May ayaa ugu dambeysay ciideeda telefoonka inay iska maqlaan oo wali waxay ku tiri telefoonka waxa laga yaabaa dad isoo wacdaan inaad i weydaan sababtoo ah waxa la yiri badda dhexdeeda xataa meel aan qad lahayn baa jirta oo qadku ka shaqeynay waa first time aan maqlo esas oo la socda haye sidii marka 15 May baa waxa la wacay doontii baa qoostay doontii ninkii gabadhan Louis iyo xaaskiisa Isabella ee saarnaayeen baa qoostay booliska ayaa la wacay waxaana wacayo Louis ayaa wacayo wuxuu yiri waa wareey na soo gaara okay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay laamaha amniga isku dayn inay badbaadiyaan meeshii doontii baa la tagay Louis baa asagoo maaragtay jetka oo doomaha marka la raacayo saaran oo maaragtay qofka haduu doonto ay gadoonto mise ay qoosado whatever dhaco emergency-ga oo suudka la xirto baa u xirnay boorsan dhabarka ayuu ku watay ayaa la soo badbaadiyay doontii marka way qoostay ahayd at that moment oo half baa hoos aaday halfna koray aaday ahayd doonto laakiin matter of time bay ahayd inay wada degto ayada dhan gadaan wayba ka wada degi doontaa okay waxa dhacday marka asagii baa la soo qaaday isla markiiba marka waxa la waayay magaceedii Isabella ayaa la waayay ninkan marka waa la soo qaaday waxa lagu soo celiyay Florida helicopter hadihin teamka oo maaragtay waxa la keenay team adag oo badaashi doontii baa la qoosay male si kasta gabadhii waa loo waayay waa loo waayay kadib marka ninkii marka Florida la keenay 48 saacadood kadib interview ayaa loo galamiyay sidii caadada ahayd boorsadii uu dhabarka ku watayna waa laga reebay ahayd waxa lagu iska bax rest qaado 48 saac kadib interviews ku soo diyaar boorsadana inta taalo okay boorsadii waxa laga dhaxelay lacag dahab iyo macdan isugu jirto okay dahab iyo macdan marka la qiyaasana qiimaheedu ay u dhigmaan 38,000 oo lacagta wadankaas ah qiimo hadii la gado yani 38,000 oo lacagta wadankaas Mareykanka ay sameynayaan laakiin wali waa macdan qaarna waa macdan oo lacag ah qaarna waa dahab oo laakiin lacag camal u sameeysan awish inuu san sharaxay uu fiican yahay okay helicopterski dadkii team ki qoosayay si kasta gabadhii waa loo raadiyay malahan interviewga aan ku soo laabanay waxa su'aasha ugu horeysay la weydiiyay ninkan waxay ahayd ma isku dayday in xaaskaaga aad badbaadisid ilaan waadigan badda xasuustay inaad boorsadaadii soo qaadatid ma isku dayday xaaskaaga inaad caawisid oo badbaadisid oo dib u xirtid jeedkaad adigoo xirnay wuxuu yiri no okay so wuxuu dhacay wuxuu yiri maalinkii waan soo laabanay ahayd oo Florida ayaan u soo soconay buu yiri xilligii baan jasiiradii meeshii ugu dambeysay hay safarkeenu markaan soo kala fireynay
baan daalay buu yidhi waan daalay waxaan ku yidhi ayada maadaama marar badan ay doonta i raacday so way taqaanaa sida loo wado anaa baray marka waxaan ku yidhi buu yidhi waa daalanahay waxyar baan seexanayaa hoosaan seexanaa ee adigu doonta saa waa taqaanaa kuleeto sida loo wado ee isdabar markaasay ku tiri buu yidhi don't worry marka marar badan baa dhacda buu yidhi inaan saas oo kale aan sameeyo marna ayadaa seexan jirtay marna anaa seexan jiray ilaan meeshii hal mar ma wada seexan kan haddaysan habeen ahayn uun istaagsanayn uu yidhi marka wuxuu yidhi waa daalanaay marka waa midnight okay waa saq dhexe markaasa waxaan ku yidhi buu yidhi soo bax anaa seexanaya adigu sii doonta dayno sii hag okay hoos baan soo daadegay waan seexday waa bedroom oo de maaragtay doontu ay leedahay dadku seexan karaan kadib meeshii baan seexday buu yidhi hal mar baan waxaan ka war helay buu yidhi jug aada u weyn waan naxay buu yidhi haddaan soo kacay biyo ayaaba soo galayba already يعني سان jugtii aan soo kacay ilaa hurdintaas aan soo kacay iyo biyo baaba igu horimid buu yiri marka waqtiba maan heli aan wax ku fikiro waa soo dabaashay buu yiri boorsada on meel ku ogaay iyo jetka oo isku badbaadiyo meel ku ogaay ayaan soo qaatay soo ugu dhaqsiya badan doontii baan uga soo baxay bari kadib aniga idin soo siiyay alarm او emergency jirto يعني تلفون hello waa qoosnana soo waxa ma ahaya meel bottom la taabtaa jiro bottom kaas marka la taabatid alarm uu bixina alarmkaas maaragtay laamaha amniga ku ugu dhow area-da ayuu siina alarm dad yani doonta meeshas location kaas taagan ayaa qoostay ama emergency u baahantay caawimaad ma fahanteen hadda okay waxa lagu yiri hadaba inaad jet aad raadsatid inaad boorsadaada lacagta kugu jirto aad raadisid waad awooday laakiin waa awood weyn inaad xaaskaaga caawisid miya xiriya ma raadinin okay maxuma haddaba doontii baa sawiro laga soo qaaday dambi baarayaasha si yani dee loo furfuro qadiyadan oo mirmir loogu saaro dee meesha dhibku ka yimid meesha loo ogaado tamam okay teamkii quusayay oo badda dhexdeeda gelayay ayaa waxay socdeen yani ilaa iyo 500 oo mile ayay badaasheen so gabadhii weli waa la weysan yahay okay waxaa la ogaaday jugtan weyn inay ka timid uu ninkani sheegayo doomuhu baa leeyahay 2 shaag bay leeyihiin labadaas shaagi waxay ka caawinaysaa inay doontu yeelato balance يعني هذه الدبالة وين يموج كهدو كعو إن إيسن دونتو إيسن كحبابين ودديدا because مرك قارع عاصفة باقي منايا دبال محاكا قالي لينا عن كردفو مركا دونتو ممرين حبابا إيسو مركا شاقا قاني وحيك عاونيا إني دونتو بالانس أيالاتو إيسن لينا عنو أبدنين shaagi baa xabad baxay shaagaas baxay baa leeyahay si easy ah kuma bixi karo waa in wax lagu dhufto unbu ku bixi kara taas waa mid tan labaad baa leeyahay doontii marka dadkan dambi baarayaashu qaarkood ay quuseen ilaan dambi baarayaashu doon kuwa quusileen kuwa pilot ileen kuwa maraakiibta kiileen kuwa traagyada waday leeyihiin sababtoo ah emergency yani dambi baarayaashu markaas wixii dhaca in lagu hawlgali karay leeyahay dambi baarayaashu ma aha kaliya nin buuga qalin soo qaato meelso istaago wax qorqoray kaliya ma ahan pilot leeyihiin kuwa taraagay wada kuwa gawaari wada kuwa qoosile kuwa cirka baarashuud xataa isku caawin karay leeyihiin marka doontii marka la sii dhaxgala waxa loo ogaaday albaabka emergency-ga inuu furnaay oo biyuhuba aysan sidoo ninkani sheegay uusan kor ka imaninay biyuhu ka imaadeen hoos qaybta emergency ka soo galeen doonta because doonta markay saan ay u sabeynayso sariirtan meesha qaybta bedroom-ka laga dhigay waa biyaha qaybta biyuhu haysta waay because korkan waa de korkii biyuhu socdeen moogtahay qaybta hoose marka waa qaybta uu qofka bedroom-kiisa marka qofka soo hurdo baa la yiri wuxuu arki karaa biyaha banaanka so qofkan biyaha dhexdeedu seexdaa baa la dhihi karaa so albaabkii halkaas ku yaalay ee emergency-ga ahay baa furnaay hadaba gabadhan haday kor joogtay albaabkan emergency-ga yaa furay wixii lagu yiri adigu albaabka emergency-ga ma ka soo baxday mise koraa soo aaday ma yiri aniga emergency-ga kama soo bixin ee markii biyuhu ay iga hor yimaadeenbo yani waxa isku day inaan iscaawiyo kor biyaha uga baxo on doonta dhankeeda alaabadii raaraadsado kadibna aan soo baxo badda isku soo tuuro
because doontu qaybtii shaag uu ka baxay baa qoostay qaybtii shaag lahayn koray aad yani saanay ahayd doontu marka I wish inaan sidii la rabay igsoo doomaha iyo waxaas aanan takhasus ku yahay fahmeenbo okay doonta marka waxyaabaha kale ee la arkay baa waxay tahay in GPS ta laga furay okay in GPS ta in laga furay ninkan marka way ka shakiyeen 17/5 laba maalmood kadib markii ay doontu qoostay still waa la raadinay khibradu markii uu u tilmaamay dharka ay wadatay surwaal yar iyo t-shirt kaliya wadatay waxayna yiraahdeen dharkaasi gabadhaasi wuxuu badbaadin karaa 13 saacadood kaliya from now on from markii ay dhacday dhacdadu kadib laakiin gabadhaas still waxa la raadinayaa 120 saacadood baa la sii maraya so way yaraatay ihtimaaliyada in gabadhan nolol lagu helo waxa badatay inay dhimatay gaba dhimatay meydkeedii waay soo okay ayadoo sidii baaritaanka u socdo ninka markii interview baa laga qaaday wax cadeyn wali lagu mahay waa la iska sii daayay week kadib baa wuxuu soo wacay laamaha amniga wuxuuna yiri waxa u baahanahay death certificate waraaqada oo maartay dhimashada baa u baahanahay which is maartay in la yaabo ee naqato laamaha amniga intuu soo waco xaaskayga ka warheysaan yani case-ka inuu daba gala xataa isku midayn uu information ogaado you know okay marka waxaa dhacday oo laamaha amniga ogaadeen inuu ninkani tigid uu u jiran yahay uu u soo socdo wadankan Ingiriiska markii la wareystay lagu yiri halkii anugta u wadaa inta u baxaysa anagoo noo soo sheegin wuxuu yiri gabadhayda yar aniga keligeyga ma hayn kari soo family-geyga oo Ingiriiska degan baa u geeraya oo araba anugta inay ii takeer garayaan laakiin waa soo laabanaya anugtii uu inta keenay wuu laabtay family-gii marka gabadhii Isabella oo Mareykanka yimiday ayadu keentay gabadhani family-geeda ayada keentay ayada ugu hortimiday waalidkeedii walaaladeed ayada keentay heed oo Colombia ka soo kaxaysay so family-geedii markay isku dayeen gabadhii ay gabadhoodu dhashay inay la xiriiraan waa loo diiday telefoon ma siinin way dacweeyeen dacwadii marka way socotaa ninkan marka dacwada family-gan ilmaha uu diiday inuu tuso at the moment asaade anugta xadaanadeeda asaa hayso soo asaa go'aanka iskala qofku tusiyo qofku tusaynin okay kadib waxaa dhacday dambi baarayaasha waxay bilaabeen inay daba galaan labadan qof xiriirkoodu sidoo ahay waxay ogaadeen Lewis inuu ahay nin aad u dabci xun oo xanaaq badan oo gacan qaad mararka qaarna yaqaana inuu ahay bay sheegeen laamaha amnigu waxa kale sheegeen ninkani inuusan family-gan yani xaaskiisa gabadhiisa yar uusan ka warheenin uusan wax biil siinaynin meel ay ku qadeen meel ay ku dhargeen uusan ka warhaynin waa halka ay idin sheegay gabadhan ninkan ka daba safraysa whenever uu tago waxaana la ogaaday jacaylku dadsa idin soo sheegay video-ga qofku ku badan in gabadhaas ayada lagu badnaa aysanba ninkan xumaantiisa aysanba u jeedin waxaa kaloo la ogaaday ay gabadha family-geedu sheegeen in ninkan iyo gabadhaani arooskan 2 week ka hor inay 2 qol kala seexanayeen ninkanina uu ahay nin xanaaq badan oo deymo badan waxa la sheegay in lagu lahaay deymankaas lagu lahaay wuxuu ku dhigi jiray waaya u fadhida waaya canugtaale oo fadhida oradoo shaqada wuxuu dhigi jirtay ayadana aniga ma ka tagay canugteeda anay ii baahan tahay yani jacaylkayga u baahantay kuriishayga u baahan tahay adaanina adigu soo shaqeey deyma lagu leeyahay daadu iska bixi adaa gashay aan waa u bixina mana awood mana bixina xataa even marka waxa kale oo ogaaday gurigan iyo maciishadooda iyo noloshooda inay Isabella ayada ay ka faalad qaadi jirtay inkastoo loogeyn gabadhaas lacaga meesha ka keentay wala ogeyn waxa kale oo la ogaaday ninkani akoonadiisa oo ku lahaa wadankaas Australia inay ugu jirto lacag dhan 160,000 oo dollarka Australian-ka ah waxaad igu soo sheegteen 160,000 oo lacagta Australian-ka ah dollar ahaan meeqay noqonaysaa reer Australia bal commentiga noogu soo sheeg ama hadda taqaanid oo inkastoo ogaay lacagta Australian-ku inay ka adag tahay tan dollarka ka adag inay ugu jirtay waxa kaloo la ogaaday dahabkii iyo macdantii ninkani uu watan idin sheegayay inay yihiin kuwa uu soo xaday okay meel ka soo xaday wali lama cadeen laakiin inuu soo xaday oo dama aragtay uu si xaq maxaa la yiraahdaa sharci darro ah oo intuu ka qaado
meelahan oo wadanka gudihiisa intuu kasoo xado inuu meelo kale kusii gadayay mararka qaar Australia geeyay mararka qaarna xuduudahaas iyo doomankaas meelahaas u raacay jasiiradahaas uu kusoo gadi jiray taasna waa lagu eedeeyay waxaana lagu eedeeyay dilka darajada labaad oo xaaskiisa uu u geystay inuu asaga albaabka emergency-ga u furay oo biyuhu halkaas ka soo galay oo xaaskiisa badbaadin waa soo awoodo inuu badbaadiyo uu raadiyo waxa soo dhan wuxuu yiri aniga marabi wax cadeyn lawyer horta adag buu ninkan qabsaday which is good lawyer adag uu qabsaday waxa the good thing uu sameeyay waa taas aheedbo wuxuu yiri lawyerkiisa horta ninkan wax cadeena lagu ma hayo mid lama hayo wax deeyno loo raacan kara maanta ma jirto ninkan canug baa u joogto oo naagtani ay u dhashay okay so marka ma rabno in sumcadiisa iyo canugtiisa yar beritoole ay cuqdad u qaaday iyadoo isdhahdo hooyada aabaha ayaa dilay waxaan codsanaynaa in loo sameeyo xukun khafiifis maxkamaduna way ogolaatay laakiin cideedu kuma faraxsaneen xukunkaasi maxkamaddu marka waxay ku xukuntay ninkan 8 sano oo jeel ah only 8 sano waxaana maxkamadeyntu ay bilaabatay ahayd 2018 ayay ahayd waxa 6 years 8 years ka lagu xukumay okay waxa laga yaabaa 2025 camal inuu soo baxo ninkani hadii Ilaahay yiraahdo canugtiisana waxa la ogaaday inay hooyadeed ee dhowr aaday 100 less than 100 inay akoonadeeda ugu jireen waan frozen baa laga dhigay oo canugteeda yar markii 18 sano jir ay gaadho bay lacagahaasi isticmaali kartaa gabadheeda Isabellana ilaa iyo maantadan gabadheeda yar gabadhaas yar si aysan cuqdad u qaadin baa ma aragtay ninkii looga dhigay 8 sano kaliya jeel lacagta hooyadeed ay ka dhimatayna markii 18 jir ay gaadho bay isticmaali kartaa intaas ka horna frozen ayay noqonaysaa hadii Ilaahay yiraahdo Isabella ku soo hirtay ilaa iyo maantadan aan videogan duubayo nolol iyo geeri midna lagu mahayo kulleeto laakiin waxay u badan tahay la miskiintaasi inay maxaa la yiraahdaa kalluunka badda ee casho u noqotay miskiintaasi haloosha ku horeynaysa wallahi dumarku masaakiin waay feel sorry wallahi qisooyinkan badana qisooyinka saad aragteen 98% waxa la dilayo waxa masaakiinta la silcinayo waa dumar saad aragteen dumar le waxa dhiban si kastaba loo dilaayo hada gabadhaas hadda maxay ka hadlaysay life insurance kuma jirin oo lacag ka helayo xas dhaysi uu dilay kala aan xas dhahay yani shayga kaliya si kasto qadiyadan kor iyo hoos markaan ka fiiriyay waxa kaliya ii soo baxay baa waxay tahay reasonka uu u dilay inay tahay kaliya inuu canugtiisa qaato canugtiisa uu ka reeban karay xudii karay ii saxiix I don't know bal idinka ii soo sheegay qaybta commentiga igula wadaaga wallahi bilaa masaakiin way dumarku wallahi dumarku masaakiin baan nahay anaga qadiyadeena maanta inta ay ku egtahay wishneedin ajabisay bal wixii aad ka fahanteen qaybta commentiga igula soo wadaaga aan walaashin hooda intaan ka kulmayno video lamid ah idinkaga tagaya fi amaanillah